Golaha Ammaanka iyo Nabadda Midowga Afrika ayaa shir xasaasi ah maanta ka yeelanaya arrimaha Soomaaliya, iyadoo shirkaasina uu ka dhici doono xarunta Midowga Afrika ee Addis Ababa. Maanta oo Khamiis ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 22-ka bisha Afraad, sanadda 2021 ayaa waxaa lagu wadaa in Golaha Amniga iyo Nabadda Midowga Afrika ay shir xasaasi ah ka yeeshaan arrimaha Soomaaliya maadaama weli doorashada Soomaaliya uu ka taagan yahay khilaaf xooggan. Midowga Afrika ayaa waxa uu qaadan doonaa door hogaamineed oo ku saabsan xal u helidda xaaladda cakiran ee siyaasadeed ee ka jirta dalka, waxaana shirkaas uu daba socdaa kadib markii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ay dalbadeen in arrimaha Soomaaliya loo daayo Midowga Afrika. Xubnaha Midowga Afrika ayaa waxaa la filayaa in shirkooda ay ku soo magacaabaan ergey cusub oo dhexdhexaadinaya saamileyda siyaasadeed ee Soomaaliya si xal looga gaaro khilaafka xooggan oo weli ka taagan doorashada. Madaxweynaha mudxuleedkiisa oo dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maalmo ka hor waxa uu booqasho ku tagay dalka Congo, isagoona madaxweynaha dalkaasi sidoo kale ah guddoomiyaha Midowga Afrika ka codsaday inuu dhexdhexaadiyo saamileyda kale ee siyaasadda iyo sidoo kale madaxda dowladda federaalka. Beesha caalamka ayaa dadaal xooggan waxay gelinaysaa in xal looga gaaro xaaladda cakiran ee ka taagan Soomaaliya, taasi oo sii xoogaysatay kadib markii 12kii bishan xildhibaanada Golaha Shacabka ay muddo kordhin u sameeyeen hay'adaha kala duwan ee dowladda. Isxaaq Rashiid Maxamuud, 5TV, Muqdisho. abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahabbay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Mar kasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus